الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحاوليه هاي روحي نفتي سؤال شركة كبحضه، يعني geeriyooda laga wadaa asaga oo saddex arrimood ka fayow jannadu galaya buu nabigu sallallahu alayhi wasallam. ruuxii dhinta geeriyooda tii alle ku timaado asaga oo saddex arrimood ka fayow dakhala jannadu galaya buu nabigu sallallahu alayhi wasallam. saddexda arrimood maxay yihiin? waa saddex arrimood oo maanta aynu u badannahay inaynu ku jirno. ta koobaad nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waa kibirka. ta labaadna wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waa deynta. ta saddexaadna nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waa quluulka iyo xoolaha dadweynaha oo la dhaco la xado. saddexdaasi ruuxii isagoo ka fayow geeriyooda jannadu galaya buu nabigu sallallahu alayhi wasallam. xadiidka waxaa laga fahmayaa saddexdaasi inay ka mid yihiin waxyaalaha dadka iyo jannada isu diida, sabab u noqda ruuxa in jannada uusan gelin. axaadiid kaleeto nabiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayhi baa sii fasirayso arrinta sii caddaynayso. arrinta ugu horrayso kibirka ku saabsan nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi sii caddeeyey, qur-aankuna meelo fara badan waa faahfaahiyey, laakiin waxaynu ku gaabsanaynaa halka xadiid ee ku yimid fi saxiixi muslim. nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi ruuxii dhinta asaga oo qalbigiisa ay ku jirto waxa ugu yar wax jira, waxyaabaha jira waxa ugu yar oo ishuba xataa ayna qaban karaynin oo kibir ah, ruuxii qalbigiisa isagoo ku jirta dhintaay, nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam naartuu galaya, jannada geli maayo. jannada geli maayo ruuxii dhinta asagoo qalbigiisa wax yar oo kibira uu ku jiro. saxaabadu ridwaanullaahi calayhim hadalkaa markuu nabigu yidhi sallallahu alayhi wasallam ayaa waxay ka fahmeen kibirka laga hadlayo macno kaley ka fahmeen. waxay ka fahmeen ruuxu inuu isqurxiyo oo dhar quruxsan iyo kaba quruxsan inuu qaatay u fahmeen. markaasay su'aasha nabiga weydiiyeen sallallahu alayhi wasallam, waxay yidhaahdeen rasuul ilaahayow, ruux kasta ruuxu waa jecel yahay in maradiisuna quruxsan tahay, kabihiisuna quruxsan yihiin, ee sidaas janno lagu geli maayo miya? khatar baa. markaasaa nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam alla waa quruxsan yahay, quruxdana waa jecel yahay. macnahaad u fahanteen ma aha way. quruxda alla waa quruxsan yahay, quruxdana waa jecel yahay. kibirkana macnahaad u fahanteen ma aha way. kibirku wax weeyaan laba qodob buu nabigu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam. waa in aad dadka yasto ood xaqirto, xaqana aad inkirto diido. labadaa qodob buu nabigu ku ururiyey kibirka salawaatu rabbi wasalaamu calayh. makhluuqa iyo dadkaasi inaad hoos u fiirisood u aragto inaad ka sidato, inaad ka fiican tahay, inaad ka nasab fiican tahay, inaad ilaahay agtiisa kaga wacan tahay, inaad ka qiimo fiican tahay, haddaabaad isu haysato qalbigaaga ay ku jirto inaad dadka ka sidato, macnaheedu waxa weeye waa kibir, cujbi waay. wabitaali dadkii aad ula dhaqanto sidii wax kaa hooseeya oo kale, ama dadkoo dhan ku samee ama dadka qaarkood ku samee. qodobka labaad ee nabigu kibirka ku qeexay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxa weeye xaqii oo kuu caddaaday ood aragto inuu xaq yahay in aad inkirto diido, ood baal marto oo aad ka leexato. taani waa nooca labaad ee kibirka weeye. kibirku waa kii ku xambaaray ibliis inuu amarka alla diido, inuu rabbi tabaaraka wa tacaala amarkiisa qaato oo aadam uu u sujuudo
waxa u diiday ku kallifay inuu madaxa taago kadibna lacnada ilaahay inay raacdo naarna sida ku waajibsado waxa keenay waxa weey kibir iyo isla weynan buu ah marka kibirku jannadu ruuxa ka qadiya naarna waa galiya sidaas daraadeed ruuxu waa inuu la dagaalamo cudurkaasi waa cudurrada shaytaanku soo galiya nafta loona baahan yahay in aad la isaga sifeeyo ruuxu uu la dagaalamo waa qodobka labaad ee nabigu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa deyntu sida loo fududaysanayo ee loo qaadanayo ee loogu ciyaarayo iyo culayska ay ku leedahay diinteenna way kala tahay aad bay u culus tahay waxaad ku garanaysaa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi sida uu u weynayn jiray arrimaha deymaha iyo deynta wuxuu ahaan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ruuxa marka la keeno oo ay noqoto janaaze in lagu tukado ruuxa meydka ah salaatul janaaze in lagu tukado rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayhi intuusan ku tukanin wuxuu weydiin jiray deyn ma lagu leeyahay janaaza loo keenay waa meyd nabiga waxay ku yiraahdeen ku tuka rasuul ilaahay intuusan ku tukanin wuxuu yiri ma deyn ma lagu leeyahay haabay dhaheen wax deynta lagu gudo ma ka tagay xoolo deynta bixiye ma ka tagay haabay dhaheen waa ku tukaday nabigu sallallahu alayhi wasallam mid kala la keenay deyn ma lagu leeyahay ma waxba lagu ma laha waa ku tukaday nabigu sallallahu alayhi wasallam mid saddexaad baa la keenay war deyn ma lagu leeyahay haa waa lagu leeyahay wax deynta guda ma ka tagay maya kama tagin sallu ala saahibikum nabigu waa isaga tagay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa ka jeesaday kadibna saxaabadiisiiba wuxuu ku yiri ku tukada idinku waa ka laabtay nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ruuxa muslimka markuu geeriyoodo xuquuqda uu muslimiinta ku leeyahay waxa kamida in lagu tukado lana asturo ومع ذلك النبي صلوات ربي وسلام عليه وكجسدي كنت كشديس صحابته يدو كنت كذا صوت ما حيتهي دينته او قبا او كدنتي wax gudana uu san ka tagin ba culays leh salaadii nabigana uu diiday صلوات ربي وسلام عليه iyo ducada uu ducayn la markale nabigeena صلوات ربي وسلام عليه nin ba u yimid wuxuu rasuulka ilaahay janaaza loo keenay ma dhila markuu damcay nabigu inuu ku tukado wuxuu yiri deyn ma lagu leeyahay ha baa leeyahay idinku ku tukada buu waa isaga tagay nin saxaabada kamid oo meesha jooga Abu Qataada la yiraahdo wuxuu rasuulka ilaahay ku tuko deyntiisi aanay saarantahay ana qaaday ana bixinay markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ma aday ku saaran tahay oo xoolahaagay ku jirtaa oo meydkani bari buu ka yahay miya Abu Qataada hadalka si fiican u fahma saasa haabu rasuulka ilaahay ana qaaday xoolahaygan ka gudaya meydkaasina shaqo kuma laha nabigu waa ku tukaday salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu ku tukaday kadib maalintii la aasay maalinkii xigay ayuu nabigu la kulmay Abu Qataada meel bay isaga hor yimaadeen wuxuu ku yiri Abu Qataada labadii diinaar maxay sameeyeen ninka laba diinaar baa lagu lahaa laba diinaar oo dahaba ayaa lagu lahaa war labadii diinaar maxay sameeyeen ka waran buu ku yiri ma guday buu ka wada ma bixis wuxuu rasuulka ilaahay oo shalay inuu ba geeriyooday yaani waqtiba kama soo wareeg shalay bay ahay nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi maalinkii xigay ayuu hadana la kulmay wuxuu ku yiri Aba Qataade labadii diinaar maxay sameeyeen wuxuu rasuulka ilaahay waan guday waa bixiyay markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam hadda ayaa wuxuu yahay waqtiga jidhkiisu qaboobay hadda ayaa meydka jidhkiisii qaboobay buu rasuulku yiri salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi u fiirsada waa deyn la qaaday oo meydka laga kor qaaday oo cid xilkeeda qaaday damaanadeeda qaaday haddana xilligii damaanada la qaaday jidhku ma qaboobin ila markii la bixiyay ba jidhku qaboobay sidaas xadiidka nabigu faa'iideynaya salawaatu rabbi wa salaamu alayhi nin kala u yimid nabiga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi
wuxuu rasuulka ilaahay oo bal ka waran haddii lay dilo oo jid ilaahay laygu dilo jihaad laygu dilo aniga oo sabraya niyadayduna fiican tahay oo ilaahay ajir ka sugayoon dan kale lahayn aakhira iyo ajir doonayo bas sii jeeda oo aan soo jeedin oo cararaynin laakiin cadawga ku sii jeeda haddii xaaladda laygu dilo dunuubtayda ilaahay ma dhaafaya nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ha ninkii inta markii loo sheegay waa jeesaday waa dhaqaaq rasuulku sallallahu alayhi wasallam waa u yeeray soo celiya buu ninkii waa la keenay wuxuu ku yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam hadalkaaga ku celi su'aashaadii weydiisay dib ugu soo celi waa ku soo celiyay markuu ku soo celiyay buu nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam ha dambigaaga oo dhan waa la dhaafayaa xaaladda haddii lagugu dilo daynta mooyaane jibriil baa hadda intaa ii sheegay buu shahiidka ilaahay dartii loo dilay sida xadiidka kale naska uu ku yahay dhibicda ugu horeyso dhiig oo jirkiisa ka soo baxda ayaa dunuubtiisoo dhan ilaahay ku masaxaya oo ku dhaafaya ilaa daynta mooyaane daynta iyadu way saarnaanaysaa haddii shahiidnimo ay dayntii fakin weyday ruuxii lagaga cafin waayo maa baaluka marka sidaas daraaddeed waxaa laga maarmaan ah dayntan la guranayo ee lagu ciyaarayo ee la luunsanayo ee la fududaysanayo arrin ilaahay agtiisa ku fudud ma ah haddii aad ka maamirkato daynta ka maaran haddaadan ka maarmi karinina mar walba waa inay walwal iyo walbahaar kugu hayso nabigeenna sallallahu alayhi wasallam waxyaaluhu ilaahay ka baryi jiray waxa ka mid ah oo ka magan gali jiray ilaah waxaan magan kaaga ahay dayntu inay iga adkaato oo culays daymeed oonan bixin karayn inuu fuulo ayaan ilaahu magan kaaga ahay buu nabigu dhihi jiray salawaatu rabbi wa salaamu calayh qodobka saddexaad oo xadiidka nabiga ku yimi sallallahu alayhi wasallam waxa weeye waa guluulka waxa la yiraahdaa ghaniimada xoolaha lagu qabsado dagaalka iyo jihaadka sharciga ee gaalada laga qabsado inta aan la qaybinin oo dadkii xaq u lahaa iyo ciidankii loo qaybinin in uu ruuxu wax ka xado xoolahaas si qarsoodiya wax kaga qaato taasaa guluulka la yiraahdaa waxa soo galaya sida xadiista nabiga laga fahmayo salawaatu rabbi wa salaamu calayhi xoolaha caamka ah ee dadweynuhu leeyahay ee dawladaha akawnadooda ku jirta iyo hantida dadka ka dhaxaysa ruuxii xaq darro ku qaatay iyadana waa nooc guluulka kamid ah ayaduna waxay kamid tahay asbaabaha ugu khatarsan oo dadka naarta geeya bal quraanka kariimka ilaahay wuxuu inoogu sheegay ruuxii sidaa wax ku qaatay maalinta qiyaamada inuu imaan doono asagoo xambaarsan wixii uu qaatay waman yaghlul ya'ti bima ghalla yawm alqiyamah wixii aad xaday oo xoolaha iyo hantida ka qaadatay maalinta qiyaamada adigoo qoorta ka saaran tahay baa lagu keeni nabiga salawaatu rabbi wa salaamu calayhi arinta guluulka ayuu aad u adkeeyay oo weyneeyay shaanigeeda markaas saxaabada wuxuu ku yiri yaanan ogaanin min idinka mid ah oo maalinta qiyaamada imaan doona asagoo neef geel ah luqunta ku sita neef ololayo ciyaya mid neef ariya tunka ku sita mid faras tunka ku sita ya markaasuu wuxuu leeyahay rasuulullaahi aghithni rasuulka ilaahu ii kaalmee ii gargaar ii caawi khatar baan ku jiraa markaasaa waxaan ku leeyahay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam wixii la ii soo diray waa ku soo gaarsiiyay dhinac iga mar waa ku soo gaarsiiyay aniga xilkii waa gutay ada halkaa isdhigay xilli aan wax kula qaban karana ma aha waa halis marka waxaa kaloo nabigeena ka sugan salawaatu rabbi wa salaamu calayh sida bukhaari iyo muslim ku yimid maalintii nabigu khaybar dagaalkii khaybar uu ku furtay ayaa dadkii meesha socday waxa kamid ahaa nin adoon ahaa oo nabiga sallallahu alayhi wasallam la siiyay oo u adeegaya rasuulka salawaatu rabbi wa salaamu calayh asagoo adeegii haya ayaa waxa ku dhacay leeb
soo lumay oo baadi ah meeluu ka soo baxay aan la garanaynin ayaa ku habsaday ninkii waa dhintay saxaabadii waxay yiraahdeen hanii'an lahu bil janna tahniyad waa loogu tahniyadeeyeen inuu jannada galayo laana shahaadu qaatay iyagu arkaan ilaahay dartii baa loo dilay bilay markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam kalla ma yabul maya saad moodeen ma tahniyad janna loogu tahniyadeeyo meesha ma taalo sababtu waxa weey maradii buu nabigu sallallahu alayhi wasallam uu xoolaha qaniimada ka qaatay oo ka xaday inta aan la qaybinin maradii iyada ahayd baa korkiisa ku holcayso gubanaysa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam naar iyo waxa isu badashay dab holcaya maradii baa korkiisa ku gubanaysa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam idinkuna jannada ugu tahniyadeynaysa markay dadkii hadalka maqleen rag badan oo wax yara qaaday baa jiray ninba wixii iska soo celiyay ninba wuxuu keenay wax yar oo yaani wax weeyaan kabta marka la qabo cidibteeda suunka yarka ee mara ee kabta haya indhasha intaasoo kale tobu nin keenay markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waa indhal naar ah mid kalena labu keenay saasoo kala waa laba naarood buu nabigu sallallahu rabbi wasallam alayhi warkaasi waa inuu gaadho dadka u kala baratamaya u kala ordaya xoolaha dadweynaha inay qaataan meelaha nafcigu leh u kala yaacaya guyaha ka dhistay magaca ku yeeshay shirkadaha ka samaystay ka noolaaday ku tamishlaynaya waa inay ogaadaan maalinta qiyaamada markay yimaadaan wax badan inay xambaarsanaan doonaan iska cun oo noolow oo tamashle oo guro oo tolka iyo qaraabadaada ka noole laakiin waxaad ogaataa maalinta qiyaamada ayadoo ku saaran ayaa amaama al-khalqi loo keeni doona laguna fadeexayn doona ka warrama hadii nabigeenu yiri salawaatu rabbi wasalaamu alayhi hadaaya al-ummal ghulul dadka shaqaalaha dawladda mid hoose mid kor ahaan noqdo shaqaalaha dawladdu wixii hadiyad ee la siiyo waa khiyaano hadiyad madaxweyne hadiyad loo keenay hadiyada inuu qaatayo waa xaraam laana hadiyadan waxa lagu siiyay waa kursiguna waa amaano oo dadka iska leh shacabka leh inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha kurastani waa amaano ehelkeeduna waa shacabka iyo raciyada iyagu malaha ka ku fadhiya malaha hadiyad baa loo keenay kursiga keenay markuu banaanka iska joogay lama siin jirin waa wasiir hadiyada loo keenay ma uu laha kursiga iska leh kursiguna waa amaano shacabka iska leh gobol buu ka taliyaa sidoo kale meel hoosu jooga sidoo kale dawladda dirsato shaqo soo qabanaya sidoo kale hadaaya al-ummal ghulul shaqaalaha dawladda wixii hadiyad loogu keenay waa ghulul nooc min al-ghill wa khayana sidaas daraadeed ka waran hadiyadii loo keenay haday khiyaano iyo ghulul noqotay tii asalka ahayd ee shaqaba uusan ku lahayn bangiga ku jirtay ee dadweynuhu lahaaye shacabku lahaa ka waran ayadu xaqay taala sidaas daraadeed man faraqa ar-ruh jasada wa huwa bari'un min thalath dakhala al-janna na'am al-kibru wad-dayn wal-ghulul صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم اللهم وفقنا لما تحب وترضى نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله